madaxweyne ku-xigeenka dowla deegaanka soomaalida aadan faarax ibraahim ayaa maanta oo arbaca waxaa loo doortay afhayeenka aqalka sare ee baarlamaanka itoobiya. aadan ayaa bedelaya kaariya ibraahim oo iscasishay isniintii ilaa iyo haatanna ma cadda sababaha dhabta ah ee shaqada ay uga tagtay haweeneydani, waxayna kasoo jeedaa qowmiyadda tigreega ee waddankaasi. qowmiyadaasi ayaa aada uga soo horjeeda qaabka uu wax u maamulo ra-iisul wasaare abiy axmed. warbaahintuna waxay kasoo xigatay kaariya ibraahim inay isu casishay kadib markii ay aqoonsatay hogaaminta abiy axmed islamarkaasina ku tilmaantay keligii taliye. dhanka kalena kadib doorashada aadan waxaa jagada ku-xigeenka baneeyey maxamed rashiid oo dhankiisana kasoo jeeda dowla deegaanka soomaalida. Atasegen Mingito ayaa loo dhaariyey xilka ku-xigeenka afhayeenka aqalka sare. tallaabadanina waxaa lala xidhiidhiyey ilaalinta awood qaybsiga qowmiyadaha. rashiidna waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay isbeddelka. dhanka kalena golaha senetka ayaa muddo kordhin 1 sano ah u sameeyey xukuumadda abiy axmed xanuunka koronaha dartiisa. sidoo kalena waxaa dhammaan ismaamul goboleedyada loogu daray waqti dheeraada. ugu dambeyntiina goruhu wuxuu meel mariyey dib u dhigista tirakoobkii afaraad ee dadweynaha itoobiya. qaraar ka soo baxay aqalka waxaa lagu sheegay inuu dhici doono 2 sano kadib marka laga adkaado xanuunka safmarka ah.